السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا موضوعنا maanta oo aan uga hadli doono arrin ka duwan arrimihii aan hore uga hadli jirnay mawduucyadeenii hore arrintaas oo ku saabsan halista heesaha Hindiga ama dunuubta iyo macaasida ka dhalan karta dhegeysiga heesaha Hindiga oo marar badan loo yaqaano heesaha Bollywoodka aflaanta Bollywoodka ama af Hindiga ah iyo heesahoodaba ayaa looga dhegeystaa ama looga daawadaa guud ahaan wadamada Islaamka gaar ahaanna wadamada Carabta iyo Khaliijka runtiina waxa ay ku leeyihiin suuq aad u weyn marka loo eego wadamada Carabta iyo Islaamka Soomaaliya ama dadka Soomaalida ah waxa ku jira dad badan oo aad u dhageysta heesaha Hindiga aflaantana fiirsada haddaba waxaan doonayaa maanta inaan ka eego dhinacyo kala duwan run ahaantii dunuubta iyo dembiyada ku jira heesaha Hindiga kuma soo koobi karna halkan xalaqo waxayna noqonaysaa in ay noqoto xalaqooyin fara badan oo dhowr ah waxaan isku dayaynaa inaan u dul istaagno mid laakiin maanta waxaan doonayaa inaan ka bixiyo sharaxaad guud waxyaabaha aan ka hadlayo dembiyada ka soo gaari kara heesaha Hindiga waxaan u qaybiyey ugu yaraan 5 nooc 5taas nooc ayaan rabaa in aan faahfaahiyo aniga oo ka soo bilaabaya koor qaybta shanaad waxaan ka dhigay dembi ay ula sameyn yihiin heesaha oo dhan macnaha heesaha Hindigu waxa ay yihiin waxa ay hees tahay oo dhan waxyaabo u gaar ahna way jiraan waxyaabaha u gaarka inta aanan ka hadlin qaybtan ugu horeysa nambarka 5aad waxa ku jira dembiyada ay kala mid yihiin hees oo dhan wixii hees sheegta hees haddii ay dembi tahay heesaha Hindigana waa dembi heesta haddii dembi looga dhigay inay beentu ku badan tahay kuwa Hindiguna waa la mid beentu way ku badan tahay haddii looga dhigay dembi muusiga iyo waxyaabaha la garaacayo ayadana way ku jiraan haddii dembi looga dhigay waxyaabo kale oo sida isdhexgalka labada jinsi ama fisiqiye kale oo aan inta badan heesaha ka harin haddii dembi looga dhigay ayagana way ku jiraan marka waxaan u malaynayaa qaybtaas inaysan u baahnayn faahfaahin intaas ka badan iyo tusaalooyin waxaa yeelay kolley qofku heese uu ka warhayo way jiraan laga yaabay haddii uusan kuwa Maraykanka ka warhayn inuu kuwa Hindiga ka warhayo hadduusan kuwa Hindiga ka warhayn kuwa af Soomaaliga inuu ka warhayo hadduusan kuwa af Soomaaliga ka warhayn kuwa Caraba ama kuwa wadamo kale oo Afrikaana dad dhegeysta way jiraan marka heesahaas unbay guud ahaan la mid yihiin waxyaabo kale oo ay uga daran yihiin heesaha ayaa jirta oo si goori ah in loo tilmaamo ay tahay waxa ay uga bedelan yihiin dadkan inta badan waa dad wasaniyiin ah qaybta afraad waxaan ka dhigi karaa heeso ama erayo la dhihi karo sida rabto u qaado macnaha waxaan ka wadnaa qofka aad tahay ayay ku xiran tahay ama si kale haddii aan u dhigo haddii aad ka mid tahay firqo ka mid ah firqooyinka muslimiinta waxaa laga yaabaa inay caadi kula noqoto ama aad dood keento oo tiraahdo waxaasi dembi maaha waa caadi qaybo kale oo firqooyinka muslimiinta ka mid ah haddii aad tahana ay agtaada ka yihiin shirki ama kufri ama waxyaabo halis ah qaybtaas insha allahu tacaala si gooniya ayaan u soo qaadan doonaa ayadoo xalaqo gooni ah aad ayay u ballaaran tahay heesaha noocaasa waxaa u badan nooca loo yaqaano qawaaliga ama nooc ka mid ah qawaaliga oo loo yaqaano nacd heesahaasi waxa ay ku saabsan yihiin waa heese ammaan ah ama Allah ha lagu amaano ama nabiga ha lagu amaano ama qof aad loo qadariyo oo la barakaysto ha lagu amaano sida la ogyahay Hindidu waxa ay isku dayayaan inta badan filimka ay soo saaraan inay suuq walba ka gadaan nooca raba ha ahaado filimka waxa laga yaabaa in lagu soo daro qof muslim ah qof Hindu ah qof Christian in lagu soo daro waxay rabaan in qof kasta ay ka gadaan filimkaas marka marar badan waxaa dhacda inay ku soo daraan heese loo ekeysiiyey inay islaami yihiin marar badan heese lagu amaanayo Ali oo loogu talagalay Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu oo loogu talagalay dadka Shiicada mujtamac Shiicada marar kale in lagu soo daro nabi amaan lagu amaanayo nabiga alayhi salaatu wasalaam mararkaas ayaa waxaa dhacaysa in ay ku soo daraan waxyaabo halis ah ama dad badan ula muuqda inay yihiin shirki ama kufri ama wax halisa oo diinta looga bixi karo halka dadka qaarna laga yaabo firqooyinka qaar macno kale inay u sameeyaan dhici karto inay daliil u baarbaaraan dhici karto inay dhahaan waxaan dhib male ay dhici karto marka qaybtaas ayaan afraad ka dhigay saddexaad waxa aan ka dhigay qayb aan dhihi karno waa jees oo kale waxaan ka wadnaa waa qayb loo qaadan karo jees dad badan
oo muslimiin ahna waa qaybta ay inta badan ka hanaaqaan waa qaybtan laakiin aniga haddii aad ii weydiiso qaybtan waxaa igala daran qaybaha ka dambeeya labada dambe ee aan sheegi doono ayaa ka halis badan marar badanna laga yaabee sidaa u qaadatay ku xiran tahay qaybtii aan hadda soo dhaafnay afraad in ay ka halis badan tahay qaybahaas maxaan ka wadnaa maxaan kala jeednaa waa qaybaha badanaa caanka ah oo dadka muslimiintu aad u dhegaystaan waxaana lagu soo daraa erayo caan ah oo dadka muslimiinta xaggeeda caanka ah oo sida subxaanallah iyo alxamdulillaah iyo maasha allah iyo allah iyo waxyaabo saasa ayaa lagu soo daraa gudahana marar badan waxyaabo kale ayaa uga jiri kara oo dembi ah laakiin marar kale waxaa dhacda iyadoo waxyaabo edabdarro ah laga sheekaynayo in la yidhaahdo ilaahu icafiyo kale allah maafi karee ilaahayow qaladan ku dhacay icafiyo kale ama gabadh qurux badanaan fiiriyee ilaahu icafi oo kale waxyaaba noocaasa oo jaajeeska waxaan ka dhigay number 3 labadan qayb ayaa ugu daran waa labada qayb oo aan doonayo inaan xoogga saaro inta aan mawduucyadeennan ku jirno qaybta koowaad waa qayba kufri iska cad ah oo macnaha oo qof ka shakinaa uusan jirin laakiin marar badan dadka u dhuumanaya laga yaabee in hees yara lahankeedu macayahay loogu soo daro qofkuna uusan markaas uusan macnaha uu carabka kala tago amaba uusan macnaheeda aqoon ee heestu ay la macaanaatay iska dhegaystay laakiin waxyaaba uu dhegaysanayo qofku inay tahay kufri sariix ah oo aan qofna ka shakinayn qaybtaas insha allah xalaqa gooni ah ayaan ka samayn doonaa haddii la yidhaahdo waana faahfaahin doonaa tusaalooyin badanna waan soo qaadan doonaa oo caan ah qaybta ugu dambaysa waa shirki sariixa ayadana qaybta koowaad waa shirki sariix ah qaybtan laga yaabee dadku inay dhahaan shirki iyo kufri maxaad u kala saartay hayla yaabinina aniga sida aan u aqaano ama la ii soo abaabiyey ama sida wax la ii soo baray shirkiga iyo kufrigu way kala duwan yihiin marar badan kolley shirkigu waa qayb ka mida kufriga laakiin haddana waa qaybta ugu halisan diinta markii la yidhaha dembi maxaa ugu weyn waa shirkigaasi heesaha hindiga aad ayuu uga buuxaa weliba si saa'ida ayuu uga buuxaa sababta keentana waxa ay tahay hindidu inta badan waa la ogyahay waa dad mushrikiin ah waa dad sanamyo kala duwan caabuda marar badan filmadooda waxay ku soo daraan heese ku saabsan ayaga oo ammaanaya sanamyadooda inta badan dadku way fahansan yihiin siba dhallinyarada filmada fiirsata waxaa xasuustaa iyada oo heesaha noocaasa la gudbiya tusaalooyin fara badan ayaan ka keeni doonaa insha allah shirkigu marka wejiyo badan ayuu ku soo gelayaa heesaha hindiga waana qaybta ugu halisan ayaan dhihin marar badan sidaan sheegay waxa uu ku soo gelayaa ayagoo sanamyadooda ammaanaya intaasoo sanab ayay leeyihiin ayaga oo ammaanaya ayay kuu soo gelinayaan filmada ama heesaha sidaas uu ku imaanayaa shirkigu marar kale wax islaami ah loo ekaysiiyey ayay ku soo gelaysaa oo ku saabsan ayadoo nabiga calayhi salaatu salaam la caabudayo ama qof caana sidaan hore u soo sheegnaba qof aad loo qadariyo islaamka dhexdiisa ama koox muslimiinta ka mid a ay aad u qadariyaan ayadoo la caabudayo ayay soo gelaysaa ama ayadoo la leeyahay macnaha erayo lagu caabudayo ayaa soo gelaysa marar badan intaasoo tusaale ayaan ku hayaa ayadana insha allah marka haddii aan ka gaarno marka xiga intaasoo tusaale ayaan ayadana ka hayaa insha allah oo kuu sheegi doonaa shirkigu mararka qaar wuxuu ku imaanayaa ayada oo qof bini aadama la caabudayo amaba qof bini aadama la leeyahay waa ku caabudayaa ama ilaahaygiiga ayaa tahay heese caan ah oo maalin kasta la dhegaysto ayaa ka mid ah heesahaas aad ayayna u badan yihiin ayada oo la leeyahay tusaale ahaan ninka uu leeyahay gabadha waa ku caabudaa ama waa kuu sujuudaa ama ilaahaygiigiyaa tahay amaba gabadhu ay ninka leedahay sidoo kale ilaahaygiigiyaa tahay ama waa ku caabudaa ama waxyaabo la mid ah ama jacaylka naftirkiisa marmarka qaar la caabudayo oo kale marka waxaan qiyaas mawduucan inuu noqon karo mawduuc aad u dheer oo aan la soo koobi karin waxaana doonayaa in aan faahfaahin dheer ka baxsho insha allahu tacaala xalaqooyinka soo socda waxaan doonayaa in aan ku faahfaahiyo afaraad saddexaad labaad iyo koowaad sida ay u kala horeeyaan ayaan doonayaa insha allah inaan mawduucyo uga sameeyo markii ay ii suurto gasho inta aan ku kulmayno xalaqada kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu